asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin meel kasta aad naga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee xaalmarinta walaalaa la xumeeyey. barnaamijkan oo todobaad kasta ka baxa telefishinka caalamiga ee Somali Channel. barnaamijkan ay todobaad kasta idin daadihiyaan anigoo ah Maxamed Boocame iyo waliba abwaanka weyn qoraaga Khaliif Ashkir Diini Xoosh waad dhamaantiinba wada garanaysaan. haddaba daawadayaal barnaamijkan ayaynu todobaadkan kusoo qaadan doonaa qodobo aad u xiiso badan. qodobadaasi ay ka mid yihiin sidii dadka Soomaaliyeed fikradahooda ugu soo diri lahaayeen emailkaas halka ku sameynay barnaamijkii hore sida ay dadku u arkeen iyo waliba riwaayad barnaamijka la socota oo iyadana aan ka soo qaadanayno iyo waliba sheekooyin goos-goosa oo ku saabsan barnaamijka. haddaba marka ugu horeysa inagu ku bilaabayna barnaamijkii hore sidii ay dadka u arkeen aan marka hore kusoo wareejiyo abwaan ama qoraa Khaliif Ashkir Diini Xoosh. Khaliif, barnaamijkii hore todobaadkii hore ka baxay telefishinka caalamiga ee Somali Channel dadku sidee u arkeen? barnaamijkii horta dadka Soomaaliyeed waa salaamaya meel joogaanba. saanka bacdi su-aasha haddaan ka jawaabo waqtiga aynu ku ciriiriyahe dadku taleefonkayga ma haysan intooda badan oo meesha kaba inuu muujin maalintii, laakiin taleefano badan oo awal ay hore iga hayeen iyo aqoon ay ii lahaayeen bay ila soo xariireen. waxa weeye wax aan jeclahay idinkuna aada jeceshihiin laakiin aan dharginhaynin baa dadka kasoo baxay. waxaa kasoo baxay qof walbaba inuu barnaamijkan u bogay oo jecel yahay oo dhowrahayey oo haddii ilaahay ku qadarhayo ayaa soo baxday oo si tiro badan usoo baxday. laakiin sidaas uma badnayn, sidii taas u badantay uma badnayn inay u hiilinayaan oo contribution iyagoo ka qaadanayaan oo wax lagu farxo oo arrintan ka jirta ay horay u marinayaan. calaacalkii iyo eedsheegadkii unbaa soo noqnoqonayay, mana raba kaas aniga. kaas labadii maalmoodoo hore ayuu noogu ekaa. waxaan u bogay oo kasoo qaatay waxaa jiray sheekada tan. doctor cabdinuur daahir wuxuu iga soo wacay meesha la yiraaho abudabi. 35 sano ayaan jiraa buu yiri. dhakhtar baana, ma guursan weligay. reer 4 caruura ah oo anigu aan u weynahay ayaan ka dhalanay. odagii iyo habartii baadiyay joogaano waxay haystaan barkado iyo xoolo. labadii cunug oo igu xigtay aniga labadiiba jaamacad bay dhiganayaanoo sanadkan bay soo qalijabinayaano waxay joogaan meesha la yiraaho Bakistan. mid wiila oo noo yaraana waxa waa korisa oo habarta iyo odaga iyo haba lacagtaan u dirira ka qaataayo meelahaas uu warwareegayo dadku u faanfaana. anigu barnaamijka kan waan maqlay. markaan maqlay waxaan aqriyahayay buuggaagii guuriya garaad oo aad wax badan aad maalin dhow kasoo sideynaysa xagga, laakiin anigu ka hor baan haystay. waxaan aqriyahay meel laleeyahay xilahaagu maxay kuu yihiin. markaasuu wuxuu leeyahay xaaskaygu waa qormada tarantayda, waa quruxda gurigayga, waa qosalka gogashayda, waa qancinta jacaylkayga, waa quudinta naftayda, waa qarinta ceebtayda, waa qasnada dhaqaalahayga, waa qisada taariikhdayda, waa quudinta naftayda, waa qofaan qofna iila mid ahayn. arrintii markaan anoo akriyahaya aada soo gashay waxaan goostay qofka saasaan ka dhigahayo inay noqoto gabar kamid a gabdhaha kan hadda meesha aad ku sheegaysaan. waxaan kaa rabaa inaad ii sheegtaa 3 waxyaalood saan aabbaha iyo hooyada uga dhaadhiciyo, iyo aroos lala yaabay baan rabaa inaan u dhigay sidaan ugu dhigo, iyo saan u heli kara iyada lafteeda ilaa qof macno lahaa rabaayo.
waxaana idhi waa mahadsan tahay, ninkaan doonahayana waa tahay, labada aad jaamacadda ka bixiso marka hore aad, waa dad wax kula garanhaya, waa dad aad xeer ku leedahay arrintan inay kula wadaan ka raari. markaad meel dhigatid hooyo waxaad beer la xawso, hooyoy waa ku jeclahay saasaana hooyaday baa tahay, hayga diidin waxaan rabo, odaga ha u dhawaanin, odayaashu waa qariban yihiin intooda badan. arrintaa markaad heshid oo saddexdaas isla heshid, hooyo gabadhii u dir, gabar beled ha ka raadin. ma raba jaaniskaas fiican oo quruxda badan inaad siisid gabar cidahoodii jaanis siiyeen, oo ama sidaadoo kale dhakhtarada ama wariye ah ama fanaanada, ma raba inaad siisid, taas kuma baahna. mid ariga la joogta oo nacasyada la joogaana waxba ay garaheeda geli jiran yihiin, oo ciil baktiyeysa, asi qurux iyo dabeecad ilaahay siiyo indhuhu buluug yihiin, hooyo raadi dheh. hooyo waxaad tiraahdaa waxaan rabaa qof aabaheed iyo hooyadeed fiican yihiin, oo dabeecad leh, oo iyado dabeecad leh, oo reebaadiyahan aad ii heshid. waxaasoo dhan odaga ha ka qarsanoode. markii arrintaas isku daba dhacdo, odaga u yeer, aabba ma jiran tahay dheh. ma oday aan jirayno ma jiro. wuxuu ku oran doonaa xaggee laga hayaa lowya, soo dhoof dheh, lacag baa ku siinayaa, abudabi igu igow, waa ku daaweynayaa, guriga keen, daawee, wadwad, haba waxee. markaad dhexso waxaa tirada aabe, weligay teeriya hameenkaad dhashay waad ila ballamaysa, waxbaraad tiri waa kaa yeelay, qur-aanka baraad tiri waa kaa yeelay, iskoolka baraad tiri waa kaa yeelay, jaamacadda ka bix baad tiri waa kaa yeelay, weligay horta anigu waxba kaa baryi maya. maadhow hade weligay anigu hadda waxaad iga barday garan mahayo, maanta wax kaa baryahayaa inaad ii ogolaataa kaa rabaa. hada maadhow maxay yihiin, ma raba inaad iga ballanqaadid maahaane, waa kaa ballanqaadaya, waxaa rabti waa ku siinaya, xaalkaasaa rabaa dheh. hadduu xataa diido, odaga waa jarjingaray kartaa, laakiin habarta ma jarjingaray karti. taasu waa sidee aabbaha iyo habarta aan u fariisiiyaa. haddii ay nagu filan tahayna labadii kale a ku daro. haddii inta tan aad rabtid inaad dadka ya ka tali, waayahay labada kale waa usoo noqoneynaa. horta sidaynu hore uu sheegnay, ficil baa loo baahan yahay. qodobadeena maanta waxaa ku jirta sidii ay dadka soomaaliyeed ee fikradahooda ay noogu soo diri lahaayeen emailka shaashada ku qoran ee ah info@xilkas.com. horsocod baa loo baahan yahay, sidaa sheegtay, action baa loo baahan yahay, ficil baa loo baahan yahay. arrintaas iyada maxaa ka leedahay? waxaan ka leeyahay emailkaas waxaa sameeyey maxamuud boocane oo la kaashanaya warbaahinta iska shaqeynayo. waa ku mahadsan yihiin, wixii hore oo ay sameeyeen baa sameynaa. waxaan u sameynay inayna meel ay aadaan waayeen oo anaa ciriiri idinku noqon. qof walbow ra'yigaaga halkaas kusoo qor, laakiin degada adeero waa fiican tahay, hadalkan waa la fiicnaa, waxaas inka daa. waxaan rabnaa inaad ama sheekooyin soo qorta, buug baa laga qori doonaa, waxaan riwaayad buu leeyahay, ama sheekooyin fiican oo qurux badan oo waxaas geli kara soo qor, ama contribution soo qor. haddaad lacag lena waxaad tirahdaa barnaamijka waa maalgelinaya, caruurta aroostay is aroostay waa dhaqaaleynaya, waa garab taagna, waxaaga wax ka bixi, khayrka qaado. maanta khayrkii baan ana wax ka dambaaya, laakiin hadda belihi lacagga beena laygu soo shubee. waay aada ba umahadsan tahay. waxaa kaloo qodobadaynu ku jira barnaamijkanaynu ku jira riwaayad aada samaysay. riwaayadaas iyo sheekooyin ay dadku runtii aada u xiiseynayaan oo maaragtay inu soo gudbino bulshada soomaaliyeed. riwaayadaha barnaamijkan bal iyada wax noogu taataaba. riwaayadan waxaa la yidhaahaa magaceeda xaqu waa daahaya baduugoobo. riwaayadan waxa ka dhacay iyo dadkii halkaa ku kulmahayay waxa ka dhici doona nairobi baa lagu dhigahayaaye waad arki doontaa dadka soomaaliyeed. soomaaliya magaalo ana waangeynaya haddaan noolahay oo horteedana dhiban, haddaan dhintana waa ka dardaarmahaya oo raggii barnaamijkan la wareega dhaxal noqon mahayo, ilmo khaliif la wareegi mahayaane dhalinyarada firfircoon oo soomaaliyeed baa la wareegeysa. ninkii la wareega
dadkii la wareegaa wadi doona. laakiin waxaa u dhib badan oo u mashaakil badan gabadha iyo wiilka. xidigta iyo xidigu waa dad cajiib badan, waana dadka meesha wada. wiilkii gabadhii markuu wataan heestii hore aan idiin soo sheegay oo ahayd qur-aanka wuxuu yihi qur-aanka iyo shareecadu nama kala qabilayaan, qof shisheeye maahida qarib ila dhashaa tahay, quruxda iyo dadnimadana waa kugu qancayaa, qabi iyo nin liitan qalad iima sheegaan, quraafaad qof ima barosaan ka qaadan mahaye, qar fuluhu ka baqayaan qunyar fuul isleeyahay, qawraamo dheer baan isqaaraaba rogayaa, qisaan reeb isleeyahay, qudha haddaan ku waayana qabrigaan ku ledayaa, qoon iga dambeeyaan qosol uga tagayaa, anna buugta qarankaa haba laygu qorayaa. halkaasaa wiilkii geystay. gabadhii arrin aan kasoo qaadi jiray halkaanoo lahaa gabdhuhu ma aaminahayaan wiilasha soomaaliyeed ayay iyadu kala qaado. waxay tiri mid qisaasan baa tahay oo qaamadkiis galay, qaabiil sidiisaa qalbigu kuu madow yahay, qarfo iyo dhurhawdaa gudcqama gudaysaa, qodax iyo qaniyaad qarka halisu joogtaa, qawraamo dheer baad qooraansanaysaa, anigana ana sida qisaas baad qool igu ridaysaa, qorshe ii dhignaabaad iga kala qubaysaa, guur lay qawadayaad ii qalqaalinaysaa. halkaas iyaduna ka baxday. markii waxaasu dhaceen laysla soo kac wiilkii hari waa, gabadhii marka sharuudahaanan ka baqayno oo saddexda ah bay ku xirtay. waa sharuudihii maanti hore a sheegno aan ahayd, waxa weeye bulshada, waalidka iyo qofka la yiraaho iyo bulshada iyo waalidka, labadaasaaba u daran, iyo caruurta oo hadhowta laleeyahay waa ilmi mahbi. waxay tiri dadku quursi iyo ceeb hadday ugu qabaamaan maxaad qaban karaysaa. wuxuu yihi qosol iyo jacayl baan anigaan ka qarinayn kugu qaabilayaa, iyagaaba quusani. markii la yihaaho gabadhi caynkaasoo wata hadduu yihaaho tirma ogidin waxay tahay eraa oga iska daaye, iyagaa qajilahaya. wax kale ay soo mareen, naagta ninkeeda xukuma. hadduu duliyana waa dulmiyeysaa, hadduu hagaajiyana waa siciimad bay noqonaysaa. waxay tiri qaladku waa gu dheer yahay, haddii ubadku qoonsado maxaad qaban karaysaa. wuxuu yihi qof bartaa ma caynee, hadday qalinka jabiyaan khuraafaadku waa hari, xaquna way iska qeexnaan, qalbigaaga taas geli, qulubtaada ku adkee qaran. taasna halkaas uga tegi. waxay tiri hooyo qayladeediyo aabba qawdhankiisii amaad qaadan weydaayo hadhow iga qosha cudaa. farsamaysan loo kaas amaad iga qashocdaa hadhow iga qashocdaa bay tiri. wuxuu yihi qisadii kalgacalka iyo qur-aankaan cuskanayaa, qawina way iska dhigayaa, yacni nin adag oo aan jilicsanin oo la marina way iska dhigahayaa. qorshahaygu suu yahay qof duwaaba maba jiro, qof duwahaya qorshahaygu siduu yahayna maba jiro, qalbigaaga kaaskeli qulubtaada ku adkay qaran. waxay tiri waxaan kuu qirayaa nin qaaliya inaad tahay, qowlkaadi tiri baa qalbigayga sida baraf u qaboojinaye, qaba hawsha oo qabo, ana qeybta igu daa. qiyaamaha waxay tiri qiyaamaha hortiisana qoos laisku cawriyo la qadariyo bilaa qaadir naga yeel. halkaasa iyadoo riwaayadaaso xaalkeeda ku socdaa. waayahay daawad usoo noqon daba riwaayadda dadweynaha soomaaliyeed oo iyagu khadka telefoonka nagula soo xiriiraya. aynu eegno khadka xiga ee telefoonka, khadka ugu horeeya. hallo, asalaamu calaykum. aad baan ugu xunnahay, dhegeystaha khadka ayaa ka go-ay.
weli daawadayaal waxaynu ku jirnaa barnaamijkeenii xaalmarinta walaalaha la xumeeyey. waxaad nagala soo xiriiri kartaan oo fikradihiina kusoo diri kartaan emailkaas info@xilkas.com. waxaa kaloo nagala soo hadli kartaan telefoonka shaashada ku qoran eber 2 eber 8 eber 9 eber 195. aan fiirina khadka xiga. halo asalaamu calaykum. halo asalaamu calaykum. halo, aada baan uga xunnahay dhegeystahaas. waxaa filayaa inaanan codkiisa maqlayn. okay, sheekooyin kaloo badan baa dhacay khalif oo ay kamid yihiin sheekadii markii dhaweed ka dhacday magaalo kamid ah magaalooyinka Soomaaliya. halo asalaamu calaykum. halo asalaamu calaykum. وعليكم السلام. walaal kusoo dhawow barnaamijka xaalmarinta walaalaha la xumeeyey. walaal horta walaal la xumeeyey barnaamijku aad iyo aad buu fiican yahay. abwaankana waan salaamayaa, adigana waan ku salaamayaa boocana. marka abwaanku aad iyo aad buu mahadsan yahay. walaal la xumeeyana insha Allah waa la xaalmarin doonaa. waa gartay walaal, marka hore magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso. walaal waxaan ka soo hadlayaa magaalada Abu Dhabi. magacaaga walaal? magacayga waxa la yiraahdaa Nuux baa la yiraahdaa. magaalada Abu Dhabi baan ka soo hadlayaa. waan gartay Nuuxow, barnaamijkani ku jirno waa barnaamijkii xaalmarinta walaalaha la xumeeyey. marka fikrad ahaan adigu sidee u aragtaa dadkan walaalaha Soomaalidu takoorto ama aan hadda anagu barnaamijkan aan ugu magac darnay xaalmarinta walaalaha la xumeeyey, sidee way fikradaadu adiga? wallahi aad iyo aad baan uga xumahay niyo walaalaha la xumeeyey. aad iyo aad baan uga xumahay. walaalo Soomaaliyeed weeye, dadku dad Soomaaliyeed weeye. marka waxaan oran lahaa anigu dadka inta la ururiyo meel hala tihiyo gaar u gaara. waan gartay Nuuxow, sidaan barnaamijkaba horey ugu sheegnay anagu waxa weeye barnaamijkan waa barnaamij loo baahan yahay ficil in loo qabto. runtii qof kasta waa uu ka xun yahay, laakiin waxa maanta aan halka usoo fariisanay ama aan barnaamijkan aanu ugu talagalnay kolleyba khaliif ayaa kuu sheegi doona. aada ma u mahadsan tahay Nuux. waaya walaal idinka mudan. abwaankana waan salaamaya, adigana waan ku salaamaya. waayahay khaliif, maqlaysa Nuux wuxuu kasoo hadlayay magaalada Abu Dhabi. wuxuu yiri aad baan uga xumahay. runtii dad badan oo na soo wacayuna saasay leeyihin aad baan uga xunahay. marka maanta waa xilligii ficilka aynu u baahnay soo maha. maanta waa xilka ay ficilka u baahnay. waan gartay khadka xiga aynu fiirina. halo asalaamu calaykum. السلام عليكم. halo asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso. walaal Sacuudi Carabi aan soo hadlaa. Sacuudi Carabi. walaal magacaa? magacaygu waa Cali. cali oo kusoo dhawow marka hore barnaamijka xaalmarinta walaalaha la xumeeyey. sidee u aragtaa barnaamijkan walaal? fikradaadu aada nagu darsanayso ama aada bulshada usoo gudbinayso waa maxay? wallahi adi marka hore horta adi abwaanka idin salaam marka hore. waan kaa qaadnay, kusoo dhawow barnaamijka. aad iyo aad aan ugu xumahay walaalaha la xumeeyey. waan gartay qof kasta walaal waa uu ka xun yahay. marka maxaad fikrad nagu soo kordhin lahayd sidii aanu barnaamijkan ama qorshahan aan aada baan uga xunahay. daawadayaal khadkaasu waa uu go-ay. aan fiirino haddaba khadka xiga ee telefoonka. halo asalaamu calaykum. وعليكم السلام. walaal magacaaga meesha ka soo hadlayso. walaal aniga waxaa la yiraahdaa Maxamuud, waxaan ka soo hadlayaa Norway. Norway. Maxamuud, kusoo dhawow barnaamijka xaalmarinta walaalaha la xumeeyey. fikradaada kusoo dhawow Maxamuud. walaal horta guud ahaan janaalkan Somali janaal ilaah baa mahadle, laakiin waan u mahadnaqayaa barnaamijyo fara badan oo ay soo daayaan, khaasatan barnaamijkan adiga boocama iyo wariyahana iyo abwaanka meesha fadhiya inkastoo magaciisa anaga khaliif ashkir intiinaba horta waa idin salaamaya. salaanta islaamka idinku salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. alaykum salaam waraxmatullahi. taa ka bacdi waxaan rabaa inaan arrinta xoogaa meel yar ra'yi ahaan aan ku darsado. arrintani ma aha arrin fikir shuqul ku leh. ra'yi qof uu dhiibanaya arrin shuqul kula ma waa arrin caqiide ayaa isalka ku haysaa. dadkan la dhiidayo ee la yasayo ilaah wuxuu leeyahay yaa ayuha nnaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wal unhaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum. macnuhu waxa weeye
yaa ayuha nnaasu wardadu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unha waxaan idinka abuurnay sidii gebi ahaan meeshaa si kasto midab kastoo aad leedihiin iyo meel kastoo aad degan tihiin iyo wax kastoo aad tihiinba asaliyan lab iyo dhadig baa idinka keenay oo nabiyullaahi aadam iyo waxaa laidinka keenay hooyadan xaawa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ummado iyo qabaa'il baa idinka dheenay si ay isku aqoonsataan laakiin ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtiisa waxaa sharaf ku leh oo qiimo ku leh ka idinkugu taqwada badan oo idinkugu kaasaa ah nabiga calayhi salaatu wasalaam saas oo kale waxaa u yimid asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa weydiiyeen waxay yidhahaan dadka yaa ugu wanaagsan wuxuu mooday xagga nasabka inay ka hadlayaan wuxuu yihi nabiyullaahi yuusuf maxaa yeelay nebi baa dhalay buu yidhi oo yacquub baa dhalay nabiyullaahi yacquub baa dhalay yacquubna ibraahim baa dhalay isxaaq ibraahim baa dhalay marka nabiyullaahi yacquub isxaaq waxaan leeyahay yuusuf yacquub isxaaqna waxaa dhalay nabiyullaahi isheeg ibraahim laakiin mar dambe uu fahmo wuxuu yidhi ma waxaa ula jeedaan xagga nasabka ula jeeda wuxuu yahay xagga ula jeeda ina akramakum cinda taqwa ayuu ku saleeyey haddaba marka dadka kan fikir iyo aniga saasay ila tahay sheekadu maaha qofkii qof muslina iyo sah isagoo ujeedkiisa u arkayo inuu ka fiican yahay ama ka sharaf fiican yahay ama ka martabad fiican yahay fikirka noocaasa qofka qaabta martabad diinta khaarijul islam buu istaagaya martabad xun buu istaagaya marka arrintaani arrin caqiidi wey dadkaana waa dad masaakiin oo la dulmay waxaa fiican marka inaad u dadbasataan oo kitaabka iyo diinta iyo barnaamijyo noocaas oo kala iyo shuyuukhda inaad soo fariisataan iyada laftigeeda oo lagu kaba arrintan dadka laga wacyigeliya halka kan waxaan qabaa kale maxamuud ahaan inkastoo aan barnaamijka hadda idaacadda aan ka arkay keliya baraarugay haddana waxaan leeyahay arrinkaani waa arrin aad iyo aad u baahan waktina in lagu lumiyo dadaal badanna la geliyo sabr fara badanna lagu sameeyo isla markaasna loo sheego qofka muslimka ee aaminsan muslim almuslim aqul muslim wey qofka muslimka qofka kale muslimka walaalkiis wey ma bahdilo ma liido oo ma biciyo oo cadow ma dhigo oo ma liido hoos uma dhigo marka hoos u dhig weeye noloshii bini'aadamka oo dhan intii laga saaray iyaga laftigoodana waxaan kula talinayaa meelaha ay joogaan qofkaan adiga ku yasaya waa qof adiga kula midahe horumarka uu gaaray iyo shaksiyadda uu gaaray haysliidina kor isku soo qaadan leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baa mahadsan tahay maxamuud khaliif aynu ku celin khaliif ninkan maxamuud kasoo hadlayay norway runtii wuxuu sheegay inaynu wadaadada la kaashano marka bal kusoo dhow wadaadada waxa weeye maxamuud wuxuu sheegay waa run waana diin waana dadka soomaalida oo muslimka ah wax waxayn kara laakiin maxamuud waxaan u sheegahayaa wadaadadu awalba kama aamusnayn arrinta tan annaguna haatan wadaadadii waa sii dhiirigelinaynaye oo waa kabaynaaye waxba ka xumayn mayno waxaan bahalka mar damba halkaa noogu yimide hadda waa bisleyneynaa oo wadaado badan qolkan yarka ah iyo dad badan iyo caaqiliin badan iyo mutacalimiin badan sooma fariisin karno waxaanu rabnaa dadka markaan waxaanu qabanaynaa hool weyn hoolkaas meediyahaan ugu yeeraynaa dhowr maalmood buu noo karaysnaanayaa waa la doodahayaa dadka bahalkan baan siinay waxbay soo qorahayaan rag baa isku soo qorahaya inay ka doodaan arrinta tan oo soo gudbinaya bahal guddi baan u samaynaynaa kala saara oo ragga doodidaas ku fiican hadduu sheikh yahay iyo hadduu mutacalim yahay iyo gabar hadday tahay mawduucyada lasoo qoray baan kala dooranaynaa kuway yihiin walaalkay waxaan u sheegaynaa maxamuud isagoo khayr allaha siiye waxaanu dhaafayno wadaadada waxaanu u diraynaa dadka maqlahaya oo u qashuucayo ku xiran fanaaniintana waxaan u diraynaa kuwa riwaayadooda soo gala oo maqlahaya yaanu u diraynaa cid aanu dhaafayno lama arko waa mass arrace kulligayo arrintaa baanu u dagaalaynaa waxaan kaleeto dadka soomaaliyed u sheegaya joogo qofkii halkan kasoo hadla ama soo qoro waa member kamida ururka kan maantayto halka kan olalahiyu ka yah wakiil aniga igama aha waa isaga dhinaciisa ha ka fidiyo caawa reerka la tago saaxiibadi meeshaan mar dhow hala arko inagoo mataqaanaayey maara naloo waayey waa mahadsanta
aada ba mahadsan tahay daawadayaal haddaba aynu eegno khadka xiga ee telefoonka. halo asalaamu calaykum walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso. magacaygu waa aadan waxaan kasoo hadlayaa norway. norway aadan kusoo dhawo walaal barnaamijka xaalmarinta walaalaha la xumeeyey. walaal salaamu calaykum marka ugu horeysa waan idin salaamayaa adiga iyo abwaanka kula fadhiya barnaamijka runtii barnaamij aad iyo aad u fiican oo xiiso badan weeyaan. in badanna waa laga hadlay arrinta oo qursiga qiimo leeyahay ayaa barnaamijkeeda ayaa socon jiray, culimadu way ka hadashay, abwaaniintu way ka hadleen. marka ma moodaa dadka Soomaalidu inay yihiin aayaddii quraanka ahayd oo yaa ayyuha alladhiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun, yani wax aydinaan samaynaynin inaad tidhaahdaan afka laga yidhaahdo maaha. marka waxaa weydiinayaa abwaanka yaana ahayn waqtigii loo baahnaa in ficil lagu muujiyo. hadalkii uu soo dhamaado sanado badan baa lasoo waday, culimadu way ka hadashay, waxgaradku wuu ka hadlay, abwaaniintu way ka hadleen. xilligii ficilka in loo baaha in hadda lagu kaco lagu dhaqaaqo ma loo baahay waliba culimada iyo ay dadka aqoonyahanka iyo abwaanada ay ka bilaabaan oo ay dadka u noqdaan tusaale ay iska daydaan soomaha waqtigii la gaadhay aan ka baxay. waayahay aada baa umahadsan tahay aadan. runtii aadan aada baan uga hadalay barnaamijka caawa waxaan usoo fadhiisanay meesha waxa weeye waa in lagu bedelo ficil lagu bedelo barnaamijka. marka khadka xiga aynu eegno. halo asalaamu calaykum walaal magacaa meesha kasoo hadlayso. وعليكم السلام ورحمة الله waxaan kasoo hadlayaa Sweden. waxaan doonayaa ninka la yiraahdo in sheeg ashkir inaan u sheego halo walaal macani waxa weeye nimankani xaal marin u noqon mayso sidaas. waxa weeye waa in ayaga laftooda la dhaqan celiya. aada baan uga xunahay daawadayaa khadkaasu. waxaan ka codsan lahayn dadkana soo wacaya inagu barnaamijkan waxa weeye barnaamijka xaalmarinta walaalaha la xumeeyey. qofka fikrad saliima inuu fikradiisa sida uu arko iyo sidii barnaamijkan waxa ugu talagalay sidii bal bulshada Soomaaliyeed aan uga dhaadhicin lahayn. marka waxaan ka codsan lahayn qof kasta inuu isku dayo inuu noo soo gudbiyo fikrad wanaagsan. aan eegno khadka xiga ee telefoonka. halo asalaamu calaykum walaal magacaaga meesha kasoo hadlayso. walaal saamiya lay dhahaa London aan kasoo hadlaya. waayahay saamiyo kusoo dhawo walaal barnaamijka. sidee u aragtaa walaal barnaamijkan xaalmarinta walaalaha la xumeeyey. walaalow Soomaaliya oo dhan la wada xumeeye xaalmarintana waxay noqonaysaa in nabad la keeno. aan taas maba kusoo wicin baxayeysiisaan rabaa TV-giina inaan qashto. yaa walaal raali iga noqo. waxaan rabaa TV xayeysiis inaan TV-giina ku samaystaan rabaa. walaal raaliho barnaamijkan walaal waa barnaamij waxaa la xiriiraysaa qaybta xayeysiiska walaal la soo xiriir telefoonka. marka lambarkan insha allah dib ayaa walaal kaaga soo siin doonaa insha allah. aada baa umahadsan tahay. waayahay daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad barnaamijkan waa barnaamijkii ku saabsanaa xaalmarinta walaalaha la xumeeyey inaad fikradihiina only aada maaragtay keliya aada nagu soo wacdaan inaad noo soo gudbisaan. weli waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii xaalmarinta walaalaha la xumeeyey. aan u gudbiyo ashkir. waa mahadsanta walaal. waa maqlahayay ninkii u dambeeyey muxuu ahaa magaciisi oo iska go-ay walaha la dhaqan celiyo. waayahay aan eegno haddaba khadka xiga ee telefoonka. halo asalaamu calaykum. calaykum asalaam. walaal magacaaga meesha kasoo hadlayso. walaalo waxaan kasoo hadlayaa UK magacaygana hodan baa la yidhaahdaa. walaalo waan idin salaamaya marka hore. hodan walaal waa kaa qaadnay. hodan ay kusoo dhawow barnaamijka xaalmarinta walaalaha la xumeeyey. waxa weeyaan walaal ilaahay toobada hayna waafajiyo, xaqa ilaahay hayna waafajiyo marka hore. amiin. dad muslima waa nahay, iyaguna waa dad inagoo kale ah, waa dad walaaliheena, waa dad Soomaaliyeed, waa dad wadanina degan oo meel kale ay ka yimaadeen oo ay deganaan jireen. aanay jirin wadankan degan bay deganaayeen. meel kasta oo magaalada ay wadanka Soomaaliyeed oo qayb kasta ahaatee ay degan way degan yihiin. waa dad intaynu wadankan leeyahay yaalay, waa dad walaaliheena, waa dad inala midaba, inala dhiiga, inala maxay leeyihiin diina. waxay different naga yihiin aanay jirin, laakiin waxa loo takooriyo loo midab soocaya waxa weeyaan wax diin la'aan ay keenayso. marka insha Allah kulli dadkeena marka hore diin la'aan isaga badnaan, laakiin imika diintu way fiday. ilaahay waxaan ka rajaynayaa in ilaahay inaga saaro tushuushkaas. xadiiska rasuulkana wuxuu ahaa laa carabiyyun walaa cajabiyun ilaa bitaqwa
taqwada ilaahay mooye wax maalinta ilaahay lagu kala dhowya ilaahay ma jirto taqwadiisa waxaan ahayn wax kaloo la isleeyahay ma jirto marka wallaahi aad baan uga jiircooday markaan halkan ka arkay dadka dulmiga lagu hayo iyo dhibta lagu hayo iyo sida loo takooriyo loo midab soocayo aan diin ilaahay aan ku sugnayn wallaahi baadilnimo aan u arkaa walaal laakiin insha allah halkaa ka wada allah isku guuleeyey ummadana ka dhaadhiciya dadkeenana ka dhaadhiciya iyaga inagu dhex daro iyaga laftirkooda waaniyo oo iyaga laftirkooda xusheeg way u baahan yihiin koos sidii loo riixayayba iyana isriixiinba oo iyagiiba issugeeyey marka iyaga laftirkooda waxay u baahan yihiin waana iyo dhaqan celin iyo maxay iyagu xusheegid laftirkeeda halkii ninkii hore xusheegid bay baahan yihiin dhaqan celinta lagu sheego waa xusheeg iyaga in wax loo sheego oo dadka lagu soo dhex daro waa gartay waa gartay walaal hodanay barnaamijka si aan kuu sheegnay in badan ayaa la hadlayay wadaado badan ayaa ka wacdiyey barnaamijkan marka maxaad u malaynaysaa sidee u malaynaysaa inaanu ku bedeli karno fikradan wallahi ilaahay baa marka hore aan ilaahay wixii la qabtay lagu kaco ilaahay baa la kaashanayaa ilaahay in lagu guuleeyo ilaahay inaga saaro tashuushkan inaga saarna waa wax dhici karta laakiin idinku waanada dadka siinaysan dadkeena ka dhaadhicinaysan waanada siinaysan baad kulleeyay malaade waan ugu dhowdahay insha Allah ilaahay baana isay noqon doonto og laakiin inagu ficilada ilaahay ficilada sameeyay ficiladii weeyaan marka halkaas ka wada insha Allah iyagana wuxuu sheegay walaal inagana dadkeena sidaas insha Allah barnaamijka u wada culimada una sideedaba awalba lama ilaahay iyagu wax kala saar insha Allah halka bay ka wadi doonaan idinkuna wax wanaagsan baa soo saarnay la qabtay insha Allah waa ku habi baan ku nahay aad baa mahadsan tahay hodanay wali waxaan bartamaha kaga jirnaa daawadayaal barnaamijkeennii xaal marinta walaalaha xumeeyay aynu eegno khadka xiga ee telefoonka halo assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal magacaaga meesha ka soo hadlayso magacayga waxaa la yidhaha hodan waxaan ka soo hadlayaa hargeysa waayahay hodan hargeysa ka soo kusoo dhow walaal barnaamijka hodane barnaamijka waan ku dhowahay laakiin waxaan odhan lahaa haddii la doonayo inaad yacni sida lagu bedelayo ama xeelka aad doonaysan inaad u heshaan walaalaha la xumeeyey waxaan idin odhan lahaa ashkir hadduu inantiisa siin lahaa dadkaa la xumeeyey qof ka mida adiga ahaan maxamuud oo barnaamijka hagayaana aad inanka dadkaa la xumeeyey I think waxaan u maleeyaa bulshadu ay isdhexgal samayn lahayd dee dadkaasi way xaqirani waxay ka bixi lahayn iyagaa horta isxaqiray marka ugu horeysa waayo ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi nabigaan wuxuu yidhi laa taxaqiru isxaqirina qofna qofka ma yaraa 9 bilood buu ku dhashay inanka dadka la xumeeyay ama 9 bilood bay inanta ku dhalatay dadka la xumeeyay ayagaa horta isugu wacan iyo sida badan ibliyaana in iyagu dadka inay naftooda proud u noqdaan bay ahayd laakiin anigu xal ahaan waxaan ku soo koobayaa waa in la isdhex galo xalna waxa lagu heli karayaa waa in xaajiga iyo inanka iyo inamada iyo cid waliba ay deer dadka la xaqriya ka guursadaan laana gaal baa loo bareedo la guursaday waliba gaalkii sanka weynaa kii cadaaba waa la guursaday qofkan dadkiina ah yani dhiigaagi qaba ee muslimnimo kula qaba ee kula yani aad wax walba wadaagtaan isna ma reason inaynu maanta sidee baa lagu xaal marin karaa xaal marin kalma u baahay hadii maanta adduunkan yani lagu nabadgelin waayo qof walba sharaftiisa isagu la soo noqon waayo aakhira la xisaabaya anu saasaan ku soo gabagabeynay intaas aan xal u noqonayso waa in la isdhex galo bulshadu inayaynan ba la siiyaa dadka wassalaamu calaykum hadda ma santahay hodane nana caliya khaliif ashkir maqlaysa hodan waxay tiri waa inaad gabadhaada siisaa wiil ka soo jeeda maaragtay reerkan maaragtay xaal marinayno waa mahadsantahay hodan waxaan barnaamijkay gadaal kasoo gaarto oo maayihii hore la socon hadda ka hor baa la weydiiyey arrintaas oo 10 jeer la weydiiyey haddana waa ku celinayaaye dadka Soomaaliyeed ha ka marag ahaado oo hodan ha ka marag ahaato oo ilaahay ha ka marag ahaado oo idinku stuudiyaha jooga ka marag ahaada haddii ama gabar aan dhalay ama iga amar qaadanaysa ama wiil aan dhalay ama iga amar qaadanayo u soo arkoodo dadkaas dada haddii ay gabadhu xun tahay oo gabar fiican ayna ahayn war iska daa ku anfici maysa waa oranaya laakiin inaana reer ugu diidin oo aan jisi ugu diidin oo weliba aan ku dhiirigeliyo oo la dhiso Soomaaliya dhan baa u bareeray inaan soo waxay ciyaalkayga diidayo xagee iga dhacaysaan waxa weeye midda kale hodan ha ogaato haddaba gabdhahaas iyo dadkaas way isguursadaan 20 isqabta 30 isqabta London la joogta wax nin iyo 2 iyo 3 iyo sameeyeen waxba tari mayso waxaa la rabaa inaanu dadkan walaalaheena la yaabka iyaga ku wajahan ka bedelo
oo layaabka aan kala soo safana xaggooda layaabka haddaad garanaysaan waxa weeye haddii la yidhaaho gabar cidahaasahanu guursaday waa la yaabaynaa oo maxaa qaaday baan leenahay. hadda aan kasoo duuno haddii la yidhaaho waa guursaday oo waayo hadduu guursooso walaashi maaha andhahdo aynu jiirno dadka meeshaan kusoo jooga. waxaan yararku hadda leeyahay guursan maysaan iyo hala waxeeye iyo lama arko. hodan markaan ka sheekeynayay doctor cali nuur daahir iyo wixiina dhex maray soo ma dhegaysanahaynin. ma hadal ba hadda waxa iyagay joogaan xaggee marahayaan? waxay marahayaan hawada inaan iska hogaamino. marka dadka soomaaliyeed iyagu iyo hadda dib noo celini oo hadal nagu celinine waxaana soo wadeen oo haddayna maanta waxayn hayn hanala mid noqdeen dadka layaabka xagga ha ka duween xagga ha u duween. waa mahadsan waayahay aada ba umahadsan tahay. waxaan filayaa hodanay in si fiican lagugu jawaabay. aynu haddaba eegno khadka xiga ee telefoonka. halo asalaamu calaykum. halo asalaamu calaykum. calaykum asalaam walaalo. walaalo magacaaga meesha kasoo hadlayso? london baan kasoo hadlayaa. walaal magacaa? nimco sugaal baa lay dhahaa. nimco sugaale. walaal marka hore kusoo dhawow barnaamijka xaalmarinta walaalaha la xumeeyey. sidee u aragtaa barnaamijka walaal? waxaan salaamayaa wadaadka waxaan salaamayaa qiimaha iyo qaayaha le qiimo iyo qaayaha le. walaal adoo raalliga dhegta nagala soco walaal telefishinka iska dami walaal ama iska gaabi. ha waxaan salaamayaa wadaadka oo abwaanka oo meesha fadhiyo qiimaha leh. haye adigana waan ku salaamayaa walaalo. waan kaa qaaday. qabiil ka wanaagsan ma jirto. annagaa la dhaqanay ilaa dirdhabe waa dad wanaagsan. ina gaar loo soocana ma wanaagsana. dee sidaas oo adeer sheegay baan annagana ku raacsanahay inaan la isdhexgalo. wuna ku celcelinayaa markasta wuxuu leeyahay uma diiday de ina warkiisa la maqlo oo siduu hadalka u dhahaayo loo qaataan jecelahay. ficilkiina ina la sameeyaan jecel. inaguna aad baad 100% umahadsantiin. waay waa mahadsan tahay nimco aad baa umahadsan tahay fikradaada wanaagsan. aan eegno khadka xiga ee telefoonka. halo asalaamu calaykum. وعليكم السلام. walaal magacaaga meesha kasoo hadlayso? ها magacayga waa Nada Cali Sheekh Xasan. waa gabartii yaan warad qad ka soo galaysay. haye xagee kasoo hadlaysaa? أنا عادتي هي خليفة عسكر كل هذا خليفة عسكر وأنا السلام يا سيدي. برنامج كنا مرة بعد يوم صار حصلنا أنا وقوم حسنتين مركز يساق وحان كان لا ولا لحل حمية سيدا أن يخرطوا واحد لبا وأن آدي هذا يانا قحمنا أنا قبل أيان أتجي مركز برنامج كجالك بعد برنامج كيا يدك يستطيع أتي عدر الصلاة وباي مقرصون هذا ضيع الحالات هاون قرصلها هاي أيان كوير أسا يقع شهادتي أصلاً كل عين أنا صومالي دكتور سلو سوجيبيا ملو براروجي وعليك صحيح دكتور أنا وزعي كجيران. waayahay aada baa umahadsan tahay. naadiya qal hadana maqlaysa naadiya waxay naadiya waa horta naadiya waa cod yar tahay iyo waa la qabaa bay tiri. ma waxay tiri waa guursan lahaa bay tiri qolada gabar ayaan u sheegay inaan guursanay marka way iga shahaadatay markii dambe aan ku celceliyay isaan hadalkeeda u fahmay. haddana waxay tiri diyaar ayaan wahay inaan reerka ka guursado. naadiya dadka aan rabo weeyo wakaas dadka wax tarahayaan oday iyo waxba tarimahayaan islaan iyo naadiya waa mahadsan tahay. naadiya berri hadda waxaa laiga marti qaaday meel dhalinyaro soomaalida oo dhan iskugu imaanayso. halkaas naadiya inaan siiyo waa rabi lahaa. abuukarka qaadka la diriraa yaa iisoo sheegay. qofkii abuukar gararaya ha weydiiyo. dadka aan raadinayno waa dadka yararka ah oo iskaabulada ah oo raba iyo saaxiibada say ugu sheegtay weldan qofka la yidhaha naadiya waa kugu mahadinayaa arooskaaga inaan kasoo qayb galana adoo guursaday weli cidahaasana rabbigay baa ka rajeynayaa. haddaadan nin lahayn de haatan codkaaga aada u maqli mayne haddii kale raalli ahow. waayahay aada baa umahadsan tahay khaliifa shakir. daawadayaal weli waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii xaalmarinta walaalaha la xumeeyey. aynu eegno khadka xiga ee telefoonka. halo asalaamu calaykum. halo aada baan uga xunahay khadka xiga aynu eegno. halo asalaamu calaykum. halo asalaamu calaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal magacaaga meesha ka soo hadlayso magacayga xuseen allu waliya xuseen abi xag soo xuseen sacuudi arabiya kala hadla sacuudi arabiya xuseen kusoo dhawow barnaamijka xaalmarinta walaalaha la xumeeyey sidee u aragtaa barnaamijka يعني barnaamijka xaalmarinta yani waxaa la doonayaa qolo shakhsi ah la doonayaa mise Soomaali oo dhan baa la doonayaa in isdhex guurso isdhex gasho walaal Soomaali walaal barnaamijka waa barnaamijka xaalmarinta walaalaha la xumeeyey waxaa laga hadlayaa dadka inta badan ee Soomaalidu kulliba waxaan filayaa inaad barnaamijka la socotaan filayaa marka walaal haddana barnaamijka la soconna khaliif ashkir ayaan khaliif طيب ما barnaamijka aan soconno hadda dhaxda ugu soo dhacay yani xaalmarin ahaan yani maxaa laga hadlaa Soomaali oo idil yani inay jinsiyad kala guursan mise inay idil gudaheeda guursato yani iyadoo isxaal marsaa la doonaya maya dadka la yiraaha la yaso oo nimanka la oran jiray midgaha tomaalada yibraha iyo wixii dadkaas la xiriira oo dulmiga iyo laangaabsiga iyo waa wada qabnaa inaguna ways laangaabsanaa inagoo dhan oo isku jirnaa dad baan la gaabsado oo na gumaystaba oo kulligeen rafaadkaas waa qabnaa waa dadka guurka lagu caayo waxaan daba soconaa طيب دقيش haba kuma qalahaya soomaalida hadda markii yani Soomaali ahaan la yiraahdo Soomaalida waageedii hore yani dad isguursanaayo oo wanaagsan oo yani wax kasto yani habba lasga godba ay ahaan jirtay hadda bariyahan dambe Soomaali intii halawday iyo dawlad laan noqotiyo yani waxyaabo fara badan ay kala wareereen gabdhii Soomaali ayaga farax ka baxay oo haday doonaan jinsiyad kale iska guursanayaan muslim ahaada ama reer kale ahaado haday doonaan yani hadba jinsiyad ay rabaan iska guursanayaan oo hadda wax xadadaba maleeba Soomaalida yani waxayba noqotay yani wax football camal dumarkeeda noqdino waxaan nahay hanala noqdeen iyaguna iyaga say nahay hanala noqdeen ayaan ka dayna hadal xumada intaa way waxaan wadnaa aad ba umahadsan tahay daawadayaal kaasina wuxuu ahaa xasan oo naga soo wacayay wadanka Norway aan fiirna khadka xiga ee telefoonka hallo salaamu calaykum hallo salaamu calaykum وعليكم السلام محمود بو عموق سلامي walaal waa kaa qaaday walaal marka hore magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso وعوالة ويه بو عماد بقو سلامية adiga iyo khaliif ba iyo Somali Channel TV waan kaa qaadnay walaal cawaale kusoo sidee waragta walaal barnaamijkan xaalmarinta walaalaha la xumeeyey aad iyo aad waa barnaamij aad u wanaagsan runtii waa barnaamij loo baahan yahay waana barnaamij runtii muddo badan aan idinka sugayno runtii walaalaha la xumeeyey haddii aan arintooda u noqdo waxa weeye runtii walaalaha la xumeeyey waad garanaysaa waa dad aqoon leh waa dad farsamo leh waa dad ku dayasho u baahan waad garanaysaa in magaalada Boosaaso la yiraahdo satellite-ka dhishka laga daawado martay iyaga sameeya saxanka waa dad horumar ku soo kordhiyay ummadda Soomaaliyeed marka waa dad loo baahan yahay in lagu daydo ma aha dad ma garanaysaa xilligan jahligii la soo dhaafay yani inaynu ku noqono ama isticmaalno wax laga tagay maaha waa dad inaga cilmi badan runtii marka ku dayashay u baahan yihiin iyo mudnaantooda in la siiyo intaasaan kaga baxaya wasalaamu calaykum aad baa umahadsan tahay daawadayaal barnaamijku waa gabagabo aan haddaba aan fiirino khadka ugu dambeeya hallo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso magacayga Farduus baa la yidhaha walaalo Farduus walaal xagee ka soo hadlaysaa London walaalo London walaal Farduus kusoo dhawow barnaamijka walaalaha la xumeeyey xaalmarinta walaalaha la xumeeyey sidee waragtaa barnaamijka walaal fikradaada walaa barnaamijka walaalo waxaan u arkaa dee haddaaba intan sii akhristaan ayagaaba sii didayaba moogta awal ismaanba iskuma ogeyn waa soo dhawaayeen be sidii ma garanaysaa tooradii hore ee jaalisiyaad waxa weeye intaaba waa lasoo dhaweynayay moogta awalna dadkay ka dhex mid dadkay la mid ahaayeen wax gaar ahaan qori ugu sitay ma ay jirin laakiin sheekaa jirtay la odhanayo masabaan yani wax la reer guraraac iyo caruur waa la isaga sheekeeya isma si arkaan moogta marka waxaa jira sheeko long time ah oo la odhan jiray moogtay dadkaasi waxbay ku yihiin waxbay si ku noqdeen moogta
wixiina wax cad ma aha wax laala wax loo geystay ma ay jirto oo kale moogta marka intaasun baynu doonaynaa in la clean gareeyo marka waxaan jeclaan lahaa mid ayaga kamid ah inaa halkan aad fadhidaan uu soo fadhiisto si aan su-aalaha u weydiino iyo sida halka wuxuu ka qaba arrintaas waayahay aada baa u mahadsan tahay fardows daawadayaal barnaamijkeenii aynu ku guda jirnay ee xaalmarinta walaalaha la xumeeyey waxaan toddobaadkan kusoo gabagabaynaynaa sheeko runtii aada qosol u leh sheekadan oo ah ka dhacday magaalo ku taala ee wadanka Soomaaliya nin ayaa wuxuu ka istaagay meel masaajid ah kadib wuxuu gabadhiisa ayuu ku yaboohay in uu u helo nin guursada masaajidka ayuu ka istaagay wuxuu yiri gabadhayda ayaan doonayaa in la guursado nin kamid ah beelaha aan hadda xaal marinayno ee gabooyaha la yiraahdo ayaa gacanta taagay kadib ninkii wuxuu ku jawaabay masaajidka ciyaarta ka daa waayahay daawadayaal intaasaan kusoo gabagabeynaa bal gabagabada barnaamijka aynu u gudbino khaliif ashkar adeer waa mahadsan tahay hadal haan ma buuxshali waa dhamaaday wixii waxaan codsanayaa barnaamijka raadiyaha waqti dhow inuu miyaamo dhow inuu ka baxaa suuragala oo isu gudbo shirweyne la iskugu yimaado shirweynahaas dad wax ka yiraaha ayaa la doonahayaa waraaqa dad soo qora oo buugta la qorahayo lagu daro ayaa la doonahayaa halkaas ku qoran emailka ku qoran kusoo qora hawshiina waa layna kala dooranayaa ogaada hadhowta waxbaan soo balabaqsiyo maxaan aniga laygu yeeri waayo la oran maayo waxaa la oranayaa qofkee halkaan inuu waxaan maanta dadka hor istaago wax u qalmo qofkee soo qalmay taas ayaan hadal kasoo waxeeyey waxaan kaloo ku gabagabaynayaa hadal kaloo lagu soo celiya dhowr jeer oo ah dadku waa inay iyaguna isdhisaan warkaas waa very important qof dhulka yaalla awal la horay baanu iri nina ma qaadi karo halkan waa tii heesta ku jirto oo isla caruurta soo la golayaa markuu yidhi waa kii yidhi qof bartaa ma ayne markay qalinka jabiyaan khuraafaadku waa hari nina gabardha tooreysaa oran maayo waa rebel waxaas weeye bahalka dadku hays dhiseen moraalkooda ha dhiseen wax ma qabaane iyan u baqanin waxa jira annaguna waa garab istaagayna waana mahadsantihiin aada baa u mahadsan tahay khaliif ashkir deyni xoosh daawadayaal barnaamijkeenii xaalmarinta walaalaha la xumeeyey toddobaadkan intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan barnaamij la kulmay intaanu kulmi doono waa aniga iyo khaliif ashkir oo idin leh sidaas iyo nabadiino dhanka farsamadana waxaa naga caawiyey siciid aada baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu